wuxuu u tilmaansaday garan maayo saddexda xisbiye uu leeyahay saddex xisbiyo habar jecel leedahay inay soo baxaan waa diriin sabab uu u tilmaansaday ma garanayo waayo dee ururo kale ay reero kale leeyihiin dee way tartamayeen tartanka way ku jiraan hadday soo baxayaan gobolkii bari waa kii inaga tegey oo rajo weyn laga qabay inuu xisbi ka mid u soo baxo oo dee tala xumaanta xukuumadda ku dhacday maanta waynu arkaynaayo maareeyaha biyu wuxuu maxay ahayd ka ololeeyaa kamarada iyo TV-ga aanay ishi dalkoo dhan iyo goob kasta aanay maxay ahayd ka shaqaynayn oo laga qaadahay sabab deegaano gaara loo bartilmaameedsado oo maxay ahayd lagaga qaado la yiraahdo isha intaasoo goobood oo ka tirsan deegaano gaara marka maareeyuhuna de inuu isiraado malaa inta ku olole oo TV-ga inta ma garanaysaa dadka beenta uga sheega TV-ga ayuu biyo laga dhirgay imika anagu biyo ma aragne TV baa dadku malaaq ay dadka kaga dhirgeen biyo de 14 sanadood maalin walba biyaan soo wadnaa coverage ku sameeynahay ama aan wadanka dhan goob kasta haday miyay tahay haday buurtii haday banaan tahayba iyo haday 100 qof ka codeynayaan iyo haday ku qof ka codeynayo aan loo sinayn maya السلام عليكم داوديال كسو دوادا ورئيسي كوبان oo la yeelan doono wasiir hore aadan axmed cilmi dhooliyare kana mid ah mas'uuliyiinta sarsare xisbiga mucaaradka wadani aadan markii hore waa soo dhaweynaya mudooyinkii ugu dambeeyay waxa soo baxayay arrimo la xiriira dhinaca doorashooyinka haday tahay dhinacii isha lagu galayay buuda sawirka arrimo kala hadalla siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka soo yeeray baa jira soo dhow xaaladda dalka ka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضع هاتسنتين بلشة تيفي وحوية هرتا إلهي مهدي إلهي وحن كرجيرنا إن شاء الله نبضي عاف مضغب إنه إلهي دور شان إنه قارسيو إنه قلنا نبضنا إنه قصار إن شاء الله ومغطى طريقي مقرنا يصاد دور الشضاء في وضضع عكتا إنه صاري إن شاء الله نحن رجينا سيدا الله قرشية أي كوميشن كو قرشيين إلهينا ugu talagalay inay wax walba inoogu hirgalaan biidni Allah waxa weeyaan qolada commissionku iyagu mahadsan oo halkooda ku sharfan waxay ka hadleen isha biometric iris waxa la yiraahdo isha lagu kala soocayo dadka waa wax wanaagsan oo de waa ma garanaysaa adduunka de marka mesela qof ku dhoofo uu immigrationada hor joogo isha waa loo saaraa laakiin waxaynu ognahay inagu waxaynu nahay dal yar oo maxay ahayd adduunka ama qaaradda aynu joognay Afrikana looguma tijaabin dalalkeenaga waaweyn wali kumay gelin xataa Yurub baan qaarkood ku gelin waxa weeyaan inaga dal ahaan Soomaaliland markaynu nahay waxa weeyaan horta marka ugu horeysa internetkeena ma ka fargareeyo ama coverage kuma sameeyo ama yani ma wada baahida internetka dalku uu qabo meel walba ma jirto ma sha Allah waynu wanaagsanahay laakiin meelaha qaarkood kama jiro waxa inta badanna ay waxyaabahan ku shaqeynayaan kulli waa internetku kama waa qayb kamid ah waxa kale ee jirta sanadkii hore markii doorashadii 17kii de ishan waxa diiday kulmiye oo yiri kuma gelino maanta horta qolada commissionkii sidan warar xogayaal ku helay 470 goobood ayay soo xuleen oo ay yiraahdeen 470 ka goobood oo tirada goobtu ay ka sareyso 1000 qof 1000 cod bixiye ayaa isha lagu beegaya oo isha la iskaga qaadaya يعني ودنك كن iyo 800 dhadhow baan u maleynaya inay goob doorasho ay ka jirto oo codka laga bixinaya 470 bay soo xusheen sidan warar xogayaal ku haya 470 kaasina deegaano gaar ah u badan yihiin oo deegaanadan koonfurta Hargeysa iyo barigan Hargeysa ay u badan yihiin oo ay leeyihiin waa goobo kun cod ka sareeya maadaama aanay ishi dalkoo dhan iyo goob kasta aanay maxay ahayd ka shaqaynayn oo laga qaadahay sabab deegaano gaara loo bartilmaameedsado oo maxay ahayd lagaga qaado la yiraahdo isha
intaasoo goobood oo ka tirsan deegaano gaara ayaa lagu gelayaa doorashada inta kalena lagu geli maayo wax la aqbali karaya maaha haddii aanay dalka oo dhan goob kasta aanay ka jirahayn midda kale tijaabadeeda ay yidhaahdeen wiiga dambaa la tijaabinaya waxaan arkay marka dibadda loo dhoofayay immigrationada qofka caadiga ah ee dayuuradaha raacay ilbaxa ayaa waxay ku qaadataa halkan istaag kor yara kac isha halkaa saar ugu yaraan 5 mirir 4 mirir baa ka luma goobta markaa 1,000 qof ka codaynayso ee gaarka loo soo xushay ee deegaano gaara ah inay timekii luminayaan halkaasay ka cadday dadkii kuyuga ku jirayna kolka ay qof walba 5 daqiiqo ay ka qaadato halka isha la saarayo iyo xaggan u yara jeedsa iyo maxay ahayd sidanu si taag islaan yaro reemiyo aan waxba garanahay waana kale qofkii ilbaxa ahaa ee qurbaha u dhoofayba ay ka qaadataa dhowr mirir inta la leeyahay immigration inta leeyahay muraayada bixi koofiyada bixi halkan saarda sida oo ay bartilmaameed ku tahayna deegaano gaara ma eedeynayo commissionku waxa dii weeyaan waa rag xil qaaday oo la dhaariyay laakiin waxaan meesha qaban 400 goobood iyo 7 goobood oo deegaano gaara lagu bartilmaameedsaday oo ay leeyihiin 1,000 cod bay ka sareeyaan mesela haddaan soo qaado xaafadan maxamed nooge waxa weeyaan 3 goobood oo qura ayaa laga codayaa gebigeedaba xaafadda dhan inta leeg 3 goobood oo qura dhowr sanduuq ay yaalaan cod badanna uu yaalaa horta waxaan leeyahay goobaha xaafadda waa in la kordhiyaa goobaha koonfurta oo kale ama bariga oo kale ama ha fogaado barigu ama ha dhowaadabe iyagana markaan soo qaadno qool cada iyo 20 kilomitir baa u dhaxeeya goob quri uma dhaxayso meelaha qaar goobaha dalkeena galbeedka oo kale 3 kilomitir iyo 2 kilomitir ay u dhaxeeyaan goobaha bariga fog iyo koonfurta Hargeysaba goobaha 10 kilomitir bay isu jiraan dadka reemiyiga ah ee halka degan iyaguna kaarka haysta qof qura ka soo gaari kara cod bixinta oo xoolihii bay dadku ku mashquulsan yihiin oo raacanayaan oo ilaashanayaan marka reerkii 5 qof ka koobnaa waxa laga yaabaa inuu qof qura ka codeeyo waayo meeshiiba uma dhawo 10 kilomitir 5 kilomitir ma lugeynayo xaafadda maxay noogana waxa soo jeedinayaa in ay ka hawl galaan ururada iyo xisbiyaduba waayo cid walba cod bay ka rabtaa oo 3 goobood macquul maaha xaafad ay ku nooshahay ugu yaraan 30,000 qof inay 3 goobood oo quri oo dhowr sanduuqa مثلا بحافظها قار مقالها القيس جودها واساس وكله لكن تنوي كسي دوانته مركا سيدا أوجد تائش أنا أرنت أصلا كله هاي لكن حدي هو بسيمتي هذا روماني كفي عنين تيهر قاب كهر الوقت مرة داني وضن كوردن كفريج كسمينه هاي أما أنا وضن كوردن جوب كسته هدي ميت هاي هدي بورتي هدي بنان تهيبا هي هدي بقول قف عضيني يعني هي هدي كوق قف عضيني أنا لو سنين مايا وقتنا وكل مايا ما دام أنا سلا أوجد وصل ميرجع لو أستيي ورح وقال سلام كهيو أفر بقول يدوري تضبط الجوبات وديجان الجارة وحكد لنا كريا واحد يا كد لنا كريا حبسا فربنا بكد لنا كرا خلطات بدن بكد لنا كرا وحلاقي يا بعض كاهل كيالا إن ضدك وأنا عضين مركان معقول ماها وكهول العلوسي هاي دوانا ما هدي لنا وحبا الله سمعين يا وين وطن كوردن لوس النادو ويان إيشان لصار يو كمرضة وين ودلك أوس النادو عد بحياش نوار أوس النادا أرنت كلام كهذا يا وحوي هاي إننا نقول واحد تري كل مية وبدي كل تطبيق تبغى وادي يمكن يسقى أرنت هرمود كه سمع حكونه مشاي محاسب والله وكل يقوم ومر والبلد يكون العليا أرنتها marka anagu wixii sax ma diidanin wixii dadku u sameeyayna ma diidanin taa markan ka baxo waxa kale jirta shalayto wasiirka caafimaadka maqlayay gaafadi oo ka hadlaya oo leh 3 xisbiyo isku reeray waa dream buuri waa riyo inay soo baxaan wasiirka iyo xukuumadda waxa uu sheegayaa way fiicnaan lahayd
in xisbiyo dee baallaha ahi ay soo baxaan dee gobolkii bari waa kii inaga tegey oo rajo weyn laga qabay inuu xisbi ka midii u soo baxo oo dee tala xumaanta xukuumadday ku dhacday cid ma garanaysaa xisbi ama urur dee way jiraan wuxuu u tilmaansaday garan maayo saddexda xisbiye uu leeyahay saddex xisbiyo habar jecel leedahay inay soo baxaan waa diriim sabab uu u tilmaansaday ma garanayo waayo dee ururo kaloo ay reero kale leeyihiinba dee way tartamayeen oo tartanka way ku jiraan hadday soo baxayaan midda kale waxaan u sheegi lahaa maanta saddex xisbi baynu leedahay saddexda xisbi laba waa isku reero waa garxajis midna waa xisbiga kale ee ay maxay tahay qoladeennaa kale haysteen ee maanta xaggan kale ku wareegay markaa markaad ayd leedahay saddex xisbiyo isku reero waa diriim oo ay jiraan maanta laba xisbiyo garxajis haddaan ka kale ku darana la yidhaahdo waa saddex xisbiyo habarmagaado ah dee dimuqraadi baynu nidhi waxa weeyaan doorashadu ayay ku dhacaysaayo inkastoo qabiil iyo wax baasoo saqajaan lagu shaqeeyo maxay ahayd dee sharcigu ma diidana inay shan nin oo walaalay ay wasiirra noqdaan yani 4.5 baynu dee wax ku qaybsanaayo sawirku imanka siduu siduu yahay laba xisbiyo garxajisi sawirka noocaas waa sidee imanka maxaa diidaya dabeedna saddex xisbiyo habar jeclay hadday soo baxaan oo dee ay cod ku soo baxaan ma waxa la odhanaya isku reerbaati dee ninkii cod ku soo baxaya waxa weeyaan dastuurkeennu wuxuu tilmaamayaa dee dimuqraadiyad markaa maanta dee sharci diidayaa ma jiro ninkii la soo bixi karaya ya inuu la soo baxo maaha in la yidhaa reer hebel baa isku tiid waa sharci waa nin iyo dadaalkii iyo kartidii wuxuu diidi karaana ma jiro marka waxa weeyaan dee taa marka waxaad leedahay aadanow had sidaa wasiirku sheegay xisbiya isku hayba iyo isku deegaana inay soo baxaan wax diidaya ma jiro sharci diidaya ma jiro ninkii karti leh tiradaa buuxin karaya sharci odhanaya dadkaasi waa isku qabiil dee ma jiro midda kale waxaan maqlayay xukuumadda oo iyaduna leh maxay ahayd ictiraafkii aynu maxay ahayd heli lahayd xisbiga waddani ajaanib buu la hadlay dad ajaanibahoo wuxuu yidhi arrintaa ma ogolin waxaad mooddaa inay soo xidhantay beentii dadka ay ka iibinayeen ee ay lahaayeen waana la ictiraafaya dabeedna waxay bilaabeen inay xisbiga waddani ku eedeeyaan ictiraafkiina la siin lahaa waddani baa hor joogsaday ayay bilaabeen annagu ictiraaf dalkani helo waxaanu ka jecel lahay ma jiro mana aha macnaheedu intaasoo madaxweynahana soo maray nin wal oo kasta macnaheeduna ma aha macnaha ictiraafka madaxweynaha keena inuu horumarkii dalkan dhameeyey nin waliba waxbuu ka qabanaya madaxweynaha ka dambeeya waxa looga baahan yahay horumar kale inuu sii gaadhsiiyo waxa weeyaan waxay arkeen waxay og yihiin inaanay wax aliyaalo waxay 7 sannadood dalkan ka qabteen oo ay ku ololeeyaan aanay jirin meel waliba way ka soo xidhantay gidaar waliba way ka soo xidhantay oo ay ku ololeeyaan soo noqnoqday waliba eedaynta marar badan soo noqnoqotay waxa ka soo eeg xisbiyadu ama xukuumaddu waxay ku ololeysaa wadooyin baanu dhisnay iskuulaanu dhisnay biyaanu keennay kan kalaanu keennay maanta waynu arkaynaayo maareeyaha biyuhu wuxuu maxay ahayd ka ololeeyaa kamarada iyo TV-ga biyaanu keenaynaa waa 14 sannadood ayaa la leeyahay jarmalka waxa weeyaan 5% hargeysa maaha kamarada dadka islaam baa waxa la yidhi berigii cabdi ilay uu kilalkan shiraalka kumi jiray ayuu biyaan qoday ceel baan qoday waxaysan qoday dabeedna qolaa baxday dabeedna miyigaa bay islaam kula kulmeen ari la joogta kogaasay taallahooya BAC-ya kogaasiinay oo soo tan ma aha madaxweynuhu leeyahay cabdi ilay meel walba ceel baanu ka qadno barkad baanu ka qadno dhaan baanu ka qadno hooyo TV-gun baa biyaha lagaga dhargabay ya TV-ga ayuun baa biyaha lagaga dhargay imanka anagu biyo ma aragne TV un baa dadku malaaq ay dadka kaga dhargeen biyey dee 14 sannadood maalin walba biyaanu soo wadnaa lacagtii jarmalku meesha way ku dhamaatay tii dambana sidan war ku hayo markii jarmalku ogaaday in la musuqmaasuqay lacagihii hore sidaan anigu war ku hayo yani waxaan huba maaha tii dambana wuu ceshaday marka maareeyahan biyaha dadka uun la hortaagan biyaha soo daynaya
meelay biyahaasi ay 5% ma aha magaalada inta leega malyan iyo jarjarku ay ku nool yihiin ay biyaha ay u sheegayeen laakiin hadda la hawal sii daayo maalmihii ugu dambeeyay 14 sanadood un baynu maqlaynay waa la sii daayay haddii marka la sii daayana wax boqolkiiba 10 ama boqolkiiba 20 oo dadku ay ku haqabeelayaan maaha marka waxa weeyaan waqtiga marka la eego iyo lacagta meesha ku baxday iyo waxa la sheegayo wax isla maaha marka maarayuhuna de inuu israado mala inta ku olole oo TV-ga inta ma garanaysaa dadka beenta uga sheega dadku ishu waxay arkaysaaba ay dadku ma garanaysaa ay wax ku arkaan oo ay ku goosanayaan waxa jiray shirar dhexmara xisbiga iyo xukuumadda waliba Musabbix iyo Faysal Al-Waraabna ay kulmeen in arintaas xaqaad arinta wallahi waxa iiga baxay horta dii xisbiyadu iskuma biiri karaan waana wada shiri karayaan laakiin xisbi waliba dii codkiisu leeyahay xisbi cod u dhiibanaya ama cod siinaya lama jiro annagu codad kama qabna haday shiraan iyo hadii kale kalsooni buuxdan u qabna maantana ilaahayna waan ku kalsoonahay annaguna waan isku kalsoonahay doorashadaasina isbedel bay sameynaysaa murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirrana madaxweyne noqonaya ciidanka ilaahay waxa weeyaan kulmiyana wuxuu maanta la shir yimaado oo kolba waa kaale maxay ahaaytay wadani ayaa ajaanibka ku yiraahda waa anagu ma ogolin oo maantana markay beentooda soo xirantay gidaar waliba uu ka soo xiray albaab waliba uu ka soo xiray wado ay ku kaambeyn garayaan ma hayaan dhakhtar ay ku kaambeyn garanayaan ma hayaan horumar kale iyo waxbarasho kale waynu arkaynay iskuuladii sanadkan laakiin soo jirta waxa qabteen waxay qabteen oo la tilmaami kara ha keenaan buuggii ay ku kaambeyn gareeyeen ugu hor yaala waxay ka qabteen bal dadka ha soo bandhigaan waxaan been iyo bilaayo ahayn beentii ahayd arinta u cidiyo kulmiye isxul Faysal noqon maya de xisbiga codayn maayo anagu waxba kama qabno walaad iyo cadaawatoona kama qabno laba nin oo meel isku salaamun baan u haysanaa laakiin maxay ahaaytay de xisbi cod ma siinayo nin walba de codkiisa wixii uu helin buu leeyahay maalmihii ugu dambeeyay xisbigeenu dad buu soo dhaweynayay oo xaflad u qabanayay bal ka waran dhaqdhaqaaq fiican oo aad iyo aad uga bedelan weeyaan muddadii hore berigaa hore xisbigu wuxuu ahaa xisbi yaroo ma garanaysaa raad barada maanta waa xisbi gaamuray waa xisbi ballaaran dadkuna way arkeen dee kulmiye toddobadiisii sannadood inay fara maran ka taagan yihiin inay dadka iska hor keenaan inay maxay ahaaytay qabyaalad ku ololeeyaan inay ku yiraahdaan maanta sidaan ku sheegayo kale xisbi hebel baa waxa ka soo horjeeda waxa looga baahan yahay dee xisbigu inuu banaanka keeno burhaantiisa oo ku ololeeyo maxay ahayd marka arrimaha ay dee aanay waxba ka jirin ay xisbigu ku ololeeyo marka waa kuwa dee keenay le saddex xisbo isku reeri war waxa la idin kama fadhiyo keena 7 sano wadanka waxa ku xukumayseen iyo waxa dalka u qabateen saddex xisbiyo isku reer ma soo bixi karaan maxay ahaaytay wadani baa ajaanib ku yiri maxay ahaaytay waan ka soo horjeednaa caynka waxaas dadka lagama iibin karo beentaasi way soo qudnay haati burhaanukum hadda ma santahay kaas waxa waa Aadan Axmed Cilmi Dhooliyare oo kamid ah saraakiisha sare xisbiga mucaaradka wadani